بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الله ما هذا سكالو إن السيئين سوسو بدنا عشرة تعنا وانا سمار سر أونلاين ترينين إذا عشرة فربنا كسو فايدة سنة وحن قادنا إن عشر كيني ستيج تبنات وانا how to set up employee إذا عشرة فربنا إنه دميهين واحد بطلابو سمار سر abadioho.com عمر رك نمبر وان لسو حريري دونا وانا very important التعصي إذا عشرة فربنا IT أنسو برناي إذا عشرة إن تلاوة سعنايا أنا وإنجنير محمد عبد الري عشرة ستعانوا ميجان إذا تلاوين فربنا عن سوق عناي financial events هذا عيا إلا إذا عشرة إني وحن سوق هذا كيس تتنب كانوا سوق دم إذا عن سوق هذا إلا يتضوي طبعا عشرة وحوجا باكدي من كويك بوكس وأنا صورة مسترنا إلا إذا وحن قاري دون الناس إذا حساب تسوي حرتو وهدي إن جندت كمباني كأسكال نجاح الصباح إن الحساب تودي أحرنا أي فرنيان كمبانيga ka wareegan company kale ay sameeysanayaan ayaga u taal anaga waa xalin doonaa hadii aanu nahay administrator ama hadii aanu nahay chief accountant baa la yiri ida 10 fara badan aan soo faa'iideysanay financial events-yada dhacayo waxay kalifayaan in go'aano la qaato marka la arko profit and loss ka company-ga iyo balance sheet-kiisa soo marayo halkaas inay dadku ku arkayaan waana very important taasi cashirkeenan kala maanta wuxuu ahaanayaa employee sida loo soo xiro loo soo set up gareeyo laakiin employee Soomaalida maba ku dhaqmaan oo payroll lagama yaqaano waa ka aan arki doonaa iyadana cashirkaasi okay employees soo set up gareyn doonaa iyadoo cashiradeenii hadba talaa employees baa inay maanay halka company-gii waan ku dhex jiraa waana edition-kii ugu dambeeyay aan tusiyo QuickBooks 2019 Enterprise 2019 19.0 loo yaqaano waana muhiim jiddan taasi employee menu bar kan soo dooranaya employee center setup gareyntiisa waa sidii vendors oo kale new employee waa dooranaysa employee badan hadaa leedahay master and mrs legal name ka iyo first name ka waa kala saaraysa employee personal name halka waxaan qorayaa master Farah okay inta kaliya ka kaashtoonaya hadii aan si printing gareyn doono jeeg aan siin doono waxa soo markaa social security duu leeyahay okay Farah waa soo halkaas ku qoran halkaan waxa weey social security waxa la yiraahdaa employees la setup gareynayo waxaan waafajinaynaa kuwan caalamiga USA citizen iyo kuwaas muwaadin Mareykan haduu yahay hadii uu black and white yahay waxaas baa la weydiin doonaa su'aalo fara badan oo diraan baan noo imaan doona social security waa 3 number waa ilaa iyo 9 number oo kale social security wuxuu noqonayaa ilaa inta soo number buu noqonayaa marka waxaan ka saarayaa social security-gi wuxuu noqon doonaa 1111 oo intaas ahaa dhibic comma waan isticmaalayaa comma intaas uu noqonayaa social security kaas female email male baan u dooranayaa halkan waxaan soo gelinayaa birthday-ga uu dhashay anagana laga rabaa birthday maanta waa 13 bisha laakiin birthday-giisii waa raadinaysaa oo uu xilliga uu dhashay laga rabaa halkaas anay bisha koowaad baan ka soo qaaday koodeedii married single haduu yahay single baan u dooranayaa haduusan married yahay USA citizen haduusan ahayn no baan iska kaga kaaftoomi karaa okay halkan waxaa lagu sii weydiinayaa Asian American black and white black African ka doontid baad dooranaysaa black African dooro halkan marka waxaan imaanayaa halkan disabled miya mise waa enable yes halkan waxaan laga rabaa disabled description hadii aan disable gareyn description ka tagayo waa caadi on iyo filekiisi yes baan iska dhigi karaa ama no aad kaaftoomaysa marka uu shaqada bilaabayo oo express ka waxa ay noqonaysaa maanta tahay bis 13 halkan waxaan lagu weydiinayaa USA vira no waan dhahayaa marka halkan waxaa lagu weydiinayaa inuu active yahay iyo inuu receive active faqat okay diraan tan waa employee laakiin wadankeena anaga dan Soomaali nahay ma waafaqsano cashirka waxaan ku qaadanaynaa si aan cashirka u qaadano baa muhiim ah sababtoo cashirna ka boodna marno cashirka 18aad ma ka boodi karno oo qaabkeena ugu nidaamsan yihiin baa saas ah address-kii wixii aan la xiriiriyay halkan edition info haduu jiro
iyo employee info hadduu jiro oo lagala xiriirayo. Title-ka uu shaqada uu ka shaqeyn doono ma supervisor ba, waxaasoo dhan baa la weydiin doonaa. Employee ma admin ba, oo markaa ma chief accountant ba, su-aalaha iska badanayo. marka mid un baan ku kaaftoomeynaa. waxaan dhahaynaa employee-geeni nadaafadda ka shaqeeya. marka description waan raacinaynaa. halkan regular waa joogto, ma aha macnaha joogtaan u qaadanay, ma aha employee oo ku meel gaar ah. halkan waxaan ku qaadanaa full time uu shaqeynayaa. marka mise full time waxa usii wadaysaa dirantirintii date-ka originalka ah iyo waxaasoo dhan baa halkan gelinaysaa ilaa iyo servicekiisa uu ku dhammaanayo kooda. lastiga waa 31. kan waxaan ka dhigaynaa markaa 30 si ay isu kala bedelaan. marka employee leave haddaan ka tagayo, haddii absent uu yahay absent loo qorayo. employee-da waxaan garanaynaa maqnaanshaha absent baa lasoo qoraa, lacagta ka jarmayso intuu qaadanayo. hadda $500 tahay, waxaa laga yaabaa maalinkii $15 iyo $15 bar inay go'do oo absent ay u go'do. hay'adaha ku shaqeeya badanaa iyo wakaalada gaar oo ku shaqeeya jira noocaas u shaqeeyo. marka haddii annaga aan rabin inaan wax jarno marka uu caafimaadkiisa iyo aan ka warqabayno, haddii anaga aan qabno caafimaadkiisa haddii asigu isu qabo, waxaasoo dhan baan la weydiinaya. marka accountantiga aad buu dhib badan yahay marka kambaniyada caalamiga ah oo financial events-yada dhacayo iyo shaqaalaha muhiimka ah oo xirfadaha leh oo loo baahan yahay aad bay looga taxadiraa oo caafimaadka iyo waxaas kambaniyada iyaga bixiya. haddii aan anaga marka Soomaalida ma waafaqay mar walba, anaga waxaan shaqaalo naqaanaa qof loo markii la iska eriyayo, markii la keensanayo macnaha rules badan ma jiro. sidaa darteed markaa waagii hore inuu jiray waa laga yaabaa dowladii hore Soomaaliya, laakiin tan ma laha badanaa saan filayo. employee waan soo dhammaystiray. marka employee setup gareyntiisa wax kale ma aha, new employee baad dooranaysaa, halkaas ka wadaysaa. waad aragtay legal name-ka un baa sheegaysaa. legal name-ka halkan master ama mrs haddii gabar tahay, markaas waxaad dhahaysaa halkan mrs ayaan. haasun baa wadaysaa. last name baa soo gelin kartaa. halkan social security waa aan kuu sheegay, wuxuu mar walba noqonayaa social security waxaa laga wadaa ilaaladiisa iyo socialkiisa. genderka female weeye. awal meel baan soo dhisnay. dhalashada waxaan iska dhahayaa 2 bishii iska dhashay. dhalashada hadhow adaa habeen doona. marriage iyo single marriage waa u qori kartaa. halkan citizen yes baa dhihi kartaa. marka su-aalo badan buu ku weydiinayaa. American, Indian, waxaas oo dhan baa fiirin doontaa. American white haddaad soo qaadan kartaa. halkan waxaad kasii wadaysaa. marka si companygii hadduu yahay company oo ka shaqeynayo no profit uu yahay, kuwaas oo kale waa sii buuxinaysaa. halkan marka taariikhda iyo waxaas lagaa rabaa mar walba waa lagu weydiinayaa shaqada goortuu bilaabayo. maanta uu bilaabayaa. yes baa iska dhaysaa. halkan active. waxaa jiri kara employee aan active ahayn marka aan joogin oo laakiin shaqada ku qoran. addresskii halka addressadii baa raaci doontaa, emailadii iyo wixii iyo lambaradii, mobile number, work number, main phone ahaan baa u qoraysaa. addresska waa PO Box. halka waa inaad tartiib ila socotaan. PO Box taasaa u qoraysaa. PO Box 12 Street oo kale. halkan cityga Mogadishu hadduu aad tahay aad joogtid companyga Mogadishu noqonayaa. Mogadishu. halkan haddii state-ka aad dhehaysa Alaska iyo Mareykan uusan ahayn, zip code-kaaga halkan ku cadeynaya 00252. halkan sidoo kale work number waa qori kartaa. telefonka oo shaqada halkan waxaa qoraysaa. fax, mobile, waxaa dhan halkaas ku qoraysaa. website, main email iyo waxaas oo dhan baa qoraysaa. primary hadduu yahay iyo secondary hadduu yahay. contactyada 2 contactya lagaa rabaa. marka personal baan ku kaaftoomeynaa maadaama waddankeena aan laga isticmaalin, waa lagu wareerayaa haddii lasii wado. daatada way sii ballaaran tahay, aad looma buuxin karo, waayo waqti badan bay qaadanaysaa daatada employee lagu dhisayo. sababtoo annaga kuma shaqeyno hadda badanaa casharada waxaa loogu talagalay dad waddanka Soomaaliya gudihiisa in lagu isticmaalo oo looga faa'iideysto. laakiin haddii lagu talagalo wadamo kale ama wadamo sharciyo rule oo ku jiro aad u adag oo shaqaalaha ku saabsan employee casharka waa lasii ballaarinaya. markaasi employee information 2 qof baan qornay, ayaan iyo waxaan qornay iyo Farax.
waan kan faahfaahinay leeyihiin report meel laga xiriiro waxa soo dhan okay employee saasa loo soo sadabgareeyaa marka company-geeni saas haddii employee additional la dhaho aan usoo dhisayna halka marka waxaan imaanayaa waxaan imaanayaa QuickBooks edition-ka waxaan ku qaadanaynaa QuickBooks Enterprise 2019 iyadoo casharo fara badan ay sugayaan how to set up employee casharka halkaas kaga gudbinaa iyadoo hadda tallaabaan hore sii qaadayna waana muhiim jiddan taasi casharada inay faraha badnaa oo kala nagu soo socdo waayo anaga waxaan ku talagalnay casharada midna inaan laga tagin oo mid walba sidiisa loo qaato waa somalisarabadiyo.com ama director number la soo xiriiri doontaa waa very important taasi iyadoo casharo fara badan aan kasoo faa'iidaysanay casharada nagu soo socdo waa report sidii la diyaarin lahaa customer report oo advanced level ah iyo how to iyo vendorska reportyadii nala weydiin aan dirno ama dadka company-ga soo maalgeliyay aan u dirayno reportyada customerska si xaaladooda yihiin email aan ugu dirayno waa kala sheegaynaa waana very important taas sidaa darteed fi amaan allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi